shirka wuxuu ahaa hal maalin wuxuuna u bilowday qaab laba geesoodyo ah oo marba ay laba dal gooni isu arkayeen kadibna iyagoo group ah oo kale ay isu arkeen halkaasoo looga sii gudbay shirka qaybtiisii weynaa ama plenary-ga ahayd shirarkaas laba geesoodyada ah waxaa lagu xalliyey arrimo badan oo culus oo ugu darnaa inta aan la gaarin shirka weyn dowladda Soomaaliya aad iyo aad ayay ugu diyaar garowday shirkan oo ay diyaar u ahayd in eedeymaha ay u soo jeedisay Kenya ay ku soo bandhigto oo kaga hadasho shirkaas hase yeeshee madaxdii IGAD ee halkaas joogtay waxay aad cadaadis noogu saareen Soomaaliya in arrinkan uu noqdo mid lagu xalliyo IGAD dhexdeeda oo uu noqdo mid laga gaaro wada hadal iyo is-afgarad oo halkaas aan arrimaheena ku xalino talaabada ugu horeysana ay tahay in xaaladda la dejiyo ama de-escalation waxa la yiraahdo oo hoos loo dhigo xiisadda Soomaaliya taas waa ay ogolaatay laakiin waxaanu ku xirnay shuruud ah in loo saaro guddi arrimaha ay Soomaaliya ka ashkatoonaysay waxay ahaayeen dhowr arrimood qaarkoodna aan idin kala hadli karno qaarkoodna aan ka gaabsan doono maadaama hawshaas ay wali socoto tan ugu culus oo ugu muhiimsan uguna maaragtay degdegta badan waxay ahayd mid ku saabsan jabhadaha ama jabhadda lagu soo abaabulay dalka Kenya dhexdiisa sida aan anagu qabno oo borderka dhinaciisa kale xuduudda dhinaceeda kale ku abaabulan taasoo IGAD ay go'aan ku gaartay in guddi xaqiiqo raadin ah loo saaro guddigaasna uu arrinkaas soo baaro arrimaha kaleeto oo ay Soomaaliya tabanayso waa wax lagu xallin karo midba siday maaragtay u kala muhiimad weyn yihiin oo lagu xallin doono diplomatic channels ama qaab diblomaasiyadeed u socon doono laakiin arrinkaas ku saabsan xuduudda iyo xiisadda ka taagan taas waxay ahayd midaan rabnay in marka hore laga wada hadlo inta aanan loo gudbin wax kale shirka wuxuu dhammaaday isla shalay sida aan wada ognahayna waad hesheen warmurtiyeedkii ka soo baxay ama communique ka soo baxay shirkaas maanta halkaas aan warbixintaas guud ku ekaayo dhowr su'aalood waxaan diyaar u nahay inaan qaadano laakiin Cabdirashiid baa noo sheegi doona cidaan ka qaadanayn su'aalaha koro hadal Abdasis, I did not say we had a bilateral talks with Kenya. I said the countries had bilateral talks before the meeting started, but there was no bilateral talk between Somalia and Kenya. So that is a clarification. That is not true. In Djibouti, we had talks between Somalia and Kenya within the framework of IGAD, with the presence of other presidents, but there was no bilateral talk. Thank you.
horta dad badan waxaa laga yaabaa inay ka walwalsan yihiin Soomaaliya iyo Kenya iyo xiriirkooda xumaaday laakiin waxaa ogaataan Kenya iyo Soomaaliya laba dal oo daris inay yihiin xiriir aad u dheerna uu ka dhaxeeyay muddo aad u dheer dad badan oo Soomaali ah iyo dad badan oo Kenyan ahna ay faa'iido u leedahay xiriirka oo wanaagsanaada Kenya iyo Soomaaliya ay ku khasban yihiin inay soo ceshadaan xiriirkooda waqtiga ay munaasib ka tahay iyo sida ugu munaasibsan oo ugu soo noqonayo xiriirkaas waan sheegay sababaha annaga shuruudda noo ahayd in marka hore la qaato marka Kenya iyo Soomaaliya xiriir way lahaan doonaan sidii horeba u lahaayeen laakiin arrintaa hadda aad sheegtay sidaas uma aha mahadsan